مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. wiilkaasi kumanaan qof oo ku xiran maanta hal qof ayaa la waayay oo garab istaago. boqolaal ayaa u sacabin jirtay, boqolaal ayaa horey u soco oran jirtay. maanta aaway hal qof maxaa loo waayay oo garab istaago. taasi tusaalaha noo noqoto walaalaha inta nafta ku jirto, inta maanta caafimaad leh oo laga yaabo waxyaalo wiilkaasi sameeyay waxa ka daran social media hadda ka wado. ogaaw dadka maanta ku sacabinayo khaladka aad ku jirto kugu taageerayo, berri markay imaado naftu kaa baxdo ama aad xanuunsato oo aad garab uga baahato, hal qof oo kuu soo gurmanayo ma jiro. waayo waa dad walba gadaal kaa taagan oo jahannam kugu sii riixayo. dadkaa naxayo ma ahayn, dad kaa damqanayo ma ahayn. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhowaada channelka Qays iyo Raxmaa. waa walaalkeen Qays. walaalayaal aad iyo aad baan idiin salaamayaa. muddo ayaanu kala maqneen, waa iska mashquul adduun, dhibaato kale ma jirto alxamdulilah. intaan kala maqnay waxyaalo badan ayaa dhacay oo kheyr ah maasha allah, sida 1 luulyo oo kaleeto, 26 June oo kaleeto. waxaan leeyahay hambalyo ayaan idin leeyahay dhammaantiin walaalayaal, hambalyo ayaan idin leeyahay dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed meel walba aad ku nooshiin. sidoo kale waxaan rabaa inaan hormariyo hambalyada ciidda. waxaan leeyahay ciid mubaarak. ciidda Carafa ayaa soo dhow insha allahu tacaala, maalmo ayaa naga xiga. ilaahay nabad nagu gaarsiiyo, ilaahay kuwa cibaadadooda laga aqbalo ilaahay naga dhigo. intaasi kadib daawadayaal, waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago dhacdo aad iyo aad u xanuun badan, dhacdo murugo badan. muuqaal aan idinla wadaagi doono waa muuqaal cabsi leh. waa wiil Soomaaliyeed oo naftu ka sii baxayso. waxaan rabaa marka inaan idinka digo, haddii aad ka cabsanaysid muuqaalo noocaasi, runtii waa muuqaal aad iyo aad u cabsi badan. qof walba wuu ka cabsanayaa ama wuu ka argagaxi karaa. haddii aad ka cabsanaysid muuqaalo noocaasi, muuqaalkan soo socdo ha daawanin. walaalayaal, waxaa jiro wiil Soomaaliyeed oo baraha bulshada caanka ah ama dadka intooda badan wada yaqaaniin. waxaa la sheegay wiilkaasi inuu qof iskaabulo ah oo kaligiis degan uu yahay. kadib markuu xanuunsaday, kaligiis guri ku xanuunsanaa oo cidna ka warqabin, halkaasi naftu uga bixi gaartay. wiilkaasi dhibaato badan ayuu soo maray. shalay ayaa iigu dambeysay, ma garanayo inuu geeriyooday ama inuu weli naftu ku jirto. kadib hosbitaal ayaa la geeyey. waxaa calool xumo ah ilaa hadda cid garab taagan, eheladiisa ahaato, qaraabadiisa ha ahaato, ummadda Soomaaliyeed ama Soomaalinimaba ha loo gurmado, cid garabkiisa taagan ma jirto aan ahayn hal wiil oo ay saaxiibo yihiin oo mar hore asaga u sheegtay xanuunkiisa oo ku yiri iga warqab. waa wax aad iyo aad laga xumaado. runtii wiilkaasi kaligiis ayuu hosbitaal ku dhimanayaa. shalay markaan arkay muuqaalkaas, isla markii ayaan facebookgayga aan soo dhigay ama la wadaagay asxaabta igu xiran facebookgayga ama pageka Facebook aan ku leeyahay. anigoo hadal ku dheeraanin walaalayaal, muuqaalka ayaan rabaa horta inaan idinla wadaago. saan hore idiin sheegay walaalayaal, wiilkan kaligiis ayuu guri deganaa. haddii uu qof la deganaan lahaa ama loo soo gurman lahaa, isla markii xanuunka markuu isku arkay hosbitaal loo qaaday lahaa, laga yaaba in wax laga qaban karo. hase ahaatee hosbitaal waqti dambe ayaa la geeyey oo dhiigu maskaxda ku furmay. marka hosbitaal la geeyey waxaa la yiri waxba lagama qaban karo. sababta ay dadka uga gaabsadeen wiilkaasi, ummadda Soomaaliyeed oo ay daris yihiin, asxaabtiisa oo dhan ay ka gaabsadeen, gaar ahaan eheladiisa iyo qaraabadiisa xilliga ugu adkeed uu u baahnaa oo ay garab istaagi waayeen. gadaal ayaan idinka sheegi doonaa insha allahu tacaala. bal haddaba walaalayaal, muuqaalkan argagax leh waa wiil Soomaaliyeed oo naftu ka sii baxayso. ila daawada. madaxa dhiig ugu furmay, maskaxda dhiig ugu furmay, maskaxda dhiig ugu furmay. waa aragteen taleefanka markii LCD-ga uu jug ka gaaro wuu isku dardarsamaa taleefanka, qadka eberka naqanayo. wiilkan intiina badan waa taqaaniin, maanta ducadiina u baahan yahay bas. wax kale oo laga qaban karo ilaahay awood ma jiro. saasay naftu ugu intaasoo ka nool yahay bas kore. waa kay saasoo noqday, saasoo noqday. sababta meesha u soo galay ama aan live-ka u soo galay ama idin tusayna waxaa waaye, waxay dhahdaa Soomaalida waxay dhahdaa niman hooyo lahayn oo hooyi lahayn, niman
hooyo lahayn hooyo lahayn qofka hooyadiisa u nooshahay qofka adduunka ugu nasiibka badan waaye kan hooyadii ee la joogto oo la noolna la joogana waa qofka adduunka ugu sii nasiibka badan ninkaan nin masaakiin ah oo ehel iyo qaraabo iyo arxan cid ka dambaysa aysan jirin waayo 2 isbuuc ka hor waxaa u malaysaa in la tusayba 2 isbuuc ka hor wuxuu igu dhahay caruusha xaalkii boost ma ee walaalow iga warqab dadka dhow sheega doono iyo dadka dhow dhihi doono anoo in adeerkay ahaa iyo anay habaryartay dhashay anay inta badda gashay markuu caafimaadka qabay cid rabta ma lahan haddana cid dad ugu soo dhow ma jirto wiilaa wuxuu ii soo qoraya saan sax miyaa sheekh saan sax ma ahan laakiin ninkan walaalka nin duco u baahan waayo waxaan dadka u tusaanay inay dadka arkaan haddii uu dhintay inta ku jirta ee ka baxdo inuu meel cidla ku dhintay ilaa xalay ilaa shalay ilaa daradoo xanuunsanaa aan taleefano wax uga caay aan dhahay ha loo imaado kaalay soo aada cid u imaado ilaahay abuurta ma jirto waxaa idin tusaa meesha aan joogay iyo dadka aan la joogo dhan kaligiisa meeshaas saaran u jeedaa kaligiisa meeshaas joogo iyo meesha aan joogo iyo dadka see yihiin aan ii tusaa waxaana arkaysiin qaybta isbitaalka waaye meeshaan waxaa saaran nin waxaa yaalo maskaxdiisa banaanka imaada fiiri maskaxdiisa afkiisa ishiisa ma la kala yaqaan muusii dhawaa kari hal qof Soomaali iska dhaafay xitaa hal qof oo muslim ah ma joogo meeshaan saan bin aadanimo ma ahan dadnimo ma ahan sababta aan ii tusay waxaa waa cibro inay nii noqoto waa cibro inay nii noqoto aanan u soo galay meeshaan live-kan ninkan walaalkiin u duceeyay shalay asaa iga xoog badnaa maantana waa kana xitaa ma neefsan kariyo min quraan waa saaray waana saaraa afkaygana kama baxo laakiin waa laga qoostay haddaa jiradiisa idiin sheego dhakhtarku wuxuu ku dhahayay maskaxda dhiig ku furmay dhiiggana waxaa keeni karo ama kansaraa ku dhacay ama jugaa ka gaartay laakiin maskaxda dhiig ku furmay marka wax rajo ma laga lahan wax rajo lagama lahan waa kaa soo u soo jooga hal mar waxaa u malaysaa neefta ugu dambaysa inuu neefsanhayo waxaa inta ka soo fuqoo ka go'aa marka ma hadli kariyo waxna ma dhahayo marka wuxuu dhahay haddii xitaa ay dhacdo inuu kaco qof wuxuu noqonaa dadkaba aan aqooniba maskaxdiisa finish way isku dhamaatay bas waay qof aan aqaanaa iyo haddaa soo hor istaagtay yaa tahay ma ku yaqaan sida qof waalan camal oo noqonaa ama ilmo yar camal oo noqonaa ilmo yar cunuga yar hooyadii iyo aabihii iyo dadkii isma kala yaqaan ee sabiga ah aan u duceeyay walaalkii kuwa hadda dhahay waa kuma imana qaanane haddaydan aqoonin ha raadinin u duceeyay bas habeenka hadda soo galaysa iyo maalinka hadda iyo habeenka isniinta soo galaysa oo kaligiis guri ku xirnaa nafta iyadoo ka bixi rabto intii ugu jirtaa ka soo gaarin qof kasta oo kaligiis meel deganow aliska warqabo aniga naftirkii aliga warqabo taleefanka aad aligu badsho taleefanka aad inta taleefankayga hayso oo taleefan lambarkayga hayso ama snapchatka ama facebookkayga hayso oo friendsna isugu jirno aliga warqabo daqiiqad ali soo waco hadaa i weysiin ali soo wax aliga warqabo xalay guriga aan kaligii isku soo xiray ka soo baxay saak hada wax ugu dhici lahayn Allahu a'lam ani waliba asaga waa ka daranoo safareeya dadka magaalada ila degan xitaa hadda i waayaan waa la iska dhaylas waa la iska yareysanaa caruush safaru ku maqaya safaru jiraa meel weyn ma jira caruush ninka qaxbaysta lama dhaho naaneystiisa le waaye laakiin waxaa la dhahaa maxamed xasan warsame la dhahaa sharcigiisa iyo dhigiisa waa kaay taleefankiisana waa kaay waa labada wuxuu ka tagi lahaa maanta waay ugu wadii adi maanta caafimaad dar ee ku qabato taleefankaaga dad kale ku qabanayso
qof kala taleefanka ku ansa gareenayo guriga qof kala qaadanayo noloshaada mas'uuliyaddeeda qof kala leh sideen u dhignaa hadhow waxa lagu dhahaa midka meeshaas lagu dhaqo midka meeshaas la geeyo midka meeshaas lagu duugo lagu dhahaa hadday caafimaad daro ku haysanay sidaan u gadi sidaan u yeel sariirta ku siki xagga yeel maba diidba qof amar leh maba diid ya maba diidba qof amar u leh ma diid eedadii maalinka ay dhimanaysay oo aan idhaay qofkii ugu wareeyo horteeda ku naf baxa waay intaysan geeriyoonin laba dhowr isbuuc ka hore waxay dhihi jirtay habeenimo inta soo kacdo busteed iyo go'eeda la laabatay bar inta soo gashato intay soo kacdo habeenimo eed maxaa kugu dhacay inta u socotaa waxay dhihi jirtay hooyaday ii yeerayso hooyaday u socdaa hooya idhaad ii imaaw hooya u socdaa eed maxaa kugu dhacay hooya u socdaa maalinka dambena waxaa waay tii rabbi u imaaday walaalo iga war haay أنا وبحا صلاة عصر هذا كل بلد إيه صوتك أنا هدو أذين صنقنا أبديني صوصينا واحد كل كاس ولا كي قفك أقونين قحب يستالدها قفك يقارن هو يقانا ادعي بس خير الله سي عاف ما تام الله سي ولا أعرف ربنا وحاجره أول بقبل وبنين أول محسنين قال الله سي قبلاس والله الدنيا آخر أنت إلهي أني كرامي الدنيا أنت جو دعائي واقبتين أو إلا حل يسوعي إلا مات يسوعي حتى ويل كسمي قانين سناب جات كاسودي كسو أركان أبو ويل كسو نقض إيجا بعلوش يورينا يبا مع أقبا كرنا مع أسمي كرنا مع أيالي كرنا مع هذا نوغا باهنتا عاونات ما أباهن لعق ما نسينا نو وحسب ما ويدين هل قف كميدا أو ويديكم مجرد mid walbo ila soo hadasho candhay abay u duceey bas inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un runtii waa waxa aad laga xumaado ilaahay caafiyo wiilkaasi walaalkeen walaalayaal shalay ayaa igu dambeysay shalay naftu way ku jirtay waxa la yiri inta kore basay naftu ku jirtaa waad aragteen soo u sakaraadayo waad aragteen say naftu u dhibeyso wiilkani wuxuu ka mid ahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isticmaalo baraha bulshada gaar ahaan TikTok qofku intuu nool yahay ama uu is asturi karo dhareerkiisa iska leexin karo ayaa wax loo sheegaa qofku markuu geeriyoodo naftu ka baxdo ama xaaladiisa ay gaarto xaaladda wiilkani oo uusan is asturi karin oo dhareerkiisa iska leexin karin oo neeftu dhibeyso oo naftuba ka bixi rabto in wax laga sheego ama waxyaalihii uu soo sameeyay lagu iqaabo oo la yiraahdo kaas ma booqaneeno hadduu dhintana qabrigiisa ma dul istaageeno in la yiraahdo waa waxa aad laga xumaado way dhacday wuxuu sameeyay khaladaadkiisa ilaahay baa la xisaabtamayo annagana waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu ilaahay dambigiisa u dhaafo haddii ay tiisa gaarto oo ay tiisa tahay inuu ilaahay nafta ku dhibin waxyaalo uu soo sameeyana inuu ilaahay ka cafiyo ayaa rajeenayna waa qof bani aadan ah waa qof bashar ah qof walba khalad uu gali karaa qof kasto annaga naga mid ah oo aan khalad ku dhici karin ama aanan ku dhicin ma jiro mar haddii ay gaarto heerkan waxaana laga rabaa kaliya inaan u duceeyno inuu ilaahay dambigiisa u dhaafo haddii aan awoodi karno aan garab istaagno wax walba aan awoodi karno u qabanno waxaan la hadlayaa walaalaha social media isticmaalo gaar ahaan TikTok wiilkaasi kumanaan qof oo ku xiran maanta hal qof ayaa la waayay oo garab istaago boqolaal ayaa u sacabin jirtay boqolaal ayaa hore u soco oran jirtay maanta aaway hal qof maxaa loo waayay oo garab istaago taasi tusaalaha noo noqoto walaalaha inta naftu ku jirto inta maanta caafimaad leh oo laga yaabo waxyaalo wiilkaasi sameeyay waxa ka daran social media hadda ka wado ogaaw dadka maanta ku sacbinayo khaladka aad ku jirto kugu taageerayo berri markay imaado naftu ka baxdo ama aad xanuunsato oo aad garab uga baahato hal qof oo ku soo gurmanayo ma jiro waayo waa dad walba gadaal ka taagan oo jahannam kugu sii riixayo dadka naxayo ma ahayn dad ka damqanayo ma ahayn marka walaalayaal intaan nool lahay inta naftu nagu jirto oo aan dhaqdhaqaaqi karo aan ka fiirsano waxaan sameynayno wiilkaasi walaalkeena Allah caafiyo caafimaad degdeg Allah siiyo qof walba uu geeriyoonaya hadduu geeriyoodana ilaahay dambigiisa u dhaafo qabrigiisana u nuuriyo
kitaabkiisana midig allah ka siiyo. aad iyo aad baad u mahadsantiin walaalayaal, muuqaalkaasi xanuunka badan murugada badan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. fadlan haddaad ku cusubtaa channelka Qays iyo Raxmaa subscribe taabo, gambaleelkana furo si aad u hesho notification. tan iyo kulantideena dambe walaalayaal, waa walaalkiin Qays oo idin leh nabad iyo nolol ayaan idin rajeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.